maamulka degmada Buurdhuubo ayaa maanta dhagax dhigay xafiis cusub oo uu yeelanayo maamulka Buurdhuubo iyadoona laga dhagax dhigay gudaha saldhigga degmada. Goobta dhagax dhigga waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee degmada Buurdhuubo. Ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sambuur. Waxa uu sheegay in dhagax dhigga xarunta cusub ee maamulka degmada yeelanayo ay iska kaashadeen maamulka degmada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan. Rabbil Caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan maanta dhagax dhignay xarun ay leedahay degmada Buurdhuubo. saad wada ogtiin degmada Buurdhuubo ma lahayn xarun ay ku shaqeyso oo ay degmada leedahay. waa markii ugu horeyso oo xarun degmo Buurdhuubo laga dhagax dhigo. waxa ilaahay maadiya ilaahay uu noo suurtageliyay inaan dhagax dhigno oo dhisno aan xarun degmada ku shaqeyso. halkan maanta waxaan dhignay degmada Buurdhuubo qolal waana markii oo waxaan degmo la dhagax dhigo. waxaan ilaahay fadliya arkaan markaan sameynay tashiyo fara badan oo aan aruurinay contributiono iyo dhaqaale aan isku dardarnay. waxaa maanta noo suurtagalay inaan si degdeg ah aan u soo gudbiyo. insha Allah waxaan yiraahdana wax farxad arki doontaa. halkaan maanta aan dhagax dhigaynana waa xarun degmo qorsaan iyo dhammaan iyo wax oo dhan waxaan ku keenay contribution iyo wada hadal iyo hadaa liibaaya ma garanaysaa ma garanaysaa dhisi doonaa habiska wax u qabsanaysa aan ku dhisi doonaa. dhanka kale waxaa isaguna ka hadlay goobtaas gudoomiyaha degmada Cali Shariif Cabdullaahi isagoo sheegay in hawsha dhismaha xarunta ay sii anbaqaadi doonaan dhagax dhiguna uu xigi doono dhismaheeda. soo geliyay inaan saaka dhagax dhigno xarun cusub oo ay leedahay degmada Buurdhuubo. waa markii ugu horeysay oo degmada Buurdhuubo ay yeelatay xaruntan oo kale. dawladda Soomaaliya inta ka dambeysay Buurdhuubo ma lahayn wax xarun degmo ah. waxa lagu shaqeysan jiray guryo dad shakhsiyaad ay leeyihiin oo la kiraysto maamul ku shaqeyn jiray. ilaahay baa noo suurtageliyay markii inaan si iska wax u qabsaa isku tashi badan bulshada iyo maamulka degmada asatada iyo hay'adaha caalamiga ah oo la kaashanayna inaan boos ay leedahay degmada Buurdhuubo u sameeyno. ilaahay baa nagu guuleeyay. waa ka maanta arkaysaan oo aan dhagax dhigayna waxaan filaynaa maalmaha nagu soo socda gudahooda soo guryo caalami ah iyo hoolal iyo boos martida loogu talagalay ay fariistaan inaan ka sameyn doono. ilaahay baana na waafajiyay. ilaahay baan ugu mahadinaynaa. fikirra iyo isweydiin badan iyo isku darsanay kadib aan intaas ku guuleysanay. ilaahay baan ugu mahadinaynaa. alxamdulillahi rabbil caalamiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si kastaba waxa xusid mudan in maamulkii hore ee degmada ay ku shaqeyn jireen gudaha garoonka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado. Bashaar Ibraahin Aadan, warbaahinta Waamo, degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado.